madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka jawaabay su'aal ay weydiiyeen suxufiyiin Turkish kadib shirkii G20 ee Indonesia ka dhacay. Mar wax laga weydiiyay suurtagalnimada ah inuu la kulmo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad iyo xiriirka Turkigu la leeyahay Suuriya iyo Masar, wuxuu yiri Erdogan, ma jiri karto caro siyaasadeed weligeed. Marka waqtigu yimaado waa in aad fiirsato oo aad qiimeysaa waxa samayn karto. Erdogan ayaa sheegay in xilligan ay tahay in Turkigu ka fiirsado xiriirka kala dhaxeeya dalalka xurgufta ka dhaxayso. Turkiga ahaan waxaan dib u eegi karnaa xiriirkan la leenahay dalalka ay dhibaatada naga haysato, ayuu yiri Erdogan. Wuxuu intaasi ku daray waxaanu samayn karnaa mar kale, gaar ahaan doorashada June kadib. Sidaas awgeed waxaan rajaynaynaa inaanu sii haysano jihada aan u socono. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixin su'aal laga weydiiyay suurtagalnimada ah inuu la kulmo madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad. Hase yeeshee waxaa la og yahay in dhowr mar uu hore u sheegay in marka kulankaas waqtigiisu yimaado uu dhacayo. Turkiga ayaa ka mid ah dalalkii militari ahaan ku lug yeeshay dagaalka Suuriya markii uu ka dhex qaraxay ciidamada daacadda u ah dowladda madaxweyne Assad iyo xogaga mucaaradka ee isku dayay inay xukunkiisa ridaan. Horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii 2019 ayuu Turkiga howlgal militari ku galay Suuriya oo uga gudbeen dhinaca xadka waqooyi. Militariga Turkiga ayaa bartilmaameedsanaya xogaga ay Kurdiyiintu hogaaminayeen oo ku sugnaa aagaas. Talabada Turkiga ayaa daba socotay go'aankii uu Mareykanku ciidamadiisa uga saaray Suuriya kadib markii ay in muddo howlgal ka fulinayeen halkaasi. 4 maalmood markii uu socday howlgalka Turkigu, Kurdiyiinta ayaa heshiis la galay dowladda Syria siday ciidankeeda ugu soo dirto ugana caawiyaan iska caabinta gulufka Turkiga. Saamaynta militari ee dalka Turkiga ayaa sanadihii dambe aad loo dareemay, wuxuuna ugu dambeyn ciidamadiisa Turkigu u diray dalka Liibiya iyo kuwii ka sii horeeyay ee howlgalka ka fulinayay waqooyiga dalka Syria. Turkiga oo sidoo kale ka mid ah ciidanka gaashaanbuurta NATO, saldhig aad u ballaaran ku leh magaalada Muqdisho ee Soomaaliya, ayaa wargeyska The Global for Power oo wax ka qora arrimaha militariga caalamka wuxuu ku qiimeeyay inuu yahay ciidanka ugu awoodda badan ee bariga dhexe. Dowladda Turkiga ayaa sanadihii dambe xoogga saartay maalgelinta ciidanka kadib afgambigii dhicisoobay ee sanadkii 2016. waxaanay xukuumadda Ankara ay xiriir militari la yeelatay dalal ay ka mid yihiin Ruushka, Qatar, Soomaaliya oo ay ku leedahay saldhigyada ugu waaweyn ee ku yaala meelo ka baxsan dalkeeda.